Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Sidee buu Nabi Muuse calayhi salaam u eedeeyey abuuna Aadam calayhi salaam? Sidee bayna ku kulmeen? Maxay ahayd doodii soo dhex martay? Ugu dambayntiina yaa ku badiyey codkarnimadiisa? Ma bannaan tahay macaasida in qadar lagu tilmaamo? Xaggee bayse doodaasi ka dhacday? Wax walba oo adduunyadan ka dhaca waxay ku dhacaan qadaha iyo qadarta Alle subxaanahu wa tacaala. Qofna uma bannaana inuu qof kale ku eedeeyo ama uu ku duro dambi horay ooga dhacay. Maxaa yeelay khalqiga dhammaantooda waa ay u siman yihiin addoonnimada. Alle ayaana la xisaabtami doona subxaanahu wa tacaala qofkii ku dhacay wixii uu ka reebay. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عمر بن الخطاب أيا وحا لغا وريي إن uu yiri: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu yiri rasuulka Alle صلى الله عليه وسلم: إن موسى النبي عليه السلام قال: نبي موسى عليه السلام أيا wuxuu yiri: يا رب أرنا أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. إلهيونا تسي أبهني إنغا إيو نفتي سبا نغسو ساري جنة. فأراه الله تعالى آدم عليه السلام. مركز بو الله سبحانه وتعالى تسيي آدم عليه السلام. فقال: أنت آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة. markaas buu ku yidhi: adigu soo ma tihid aadamkii naftiisa iyo nafteenaba naga soo saaray jannada? faqaala lahu aadam: nacam. markaas buu aadam calayhi salaam ku yidhi: haa, waa isaga. qaal: anta aladii nafakha allahu tacaala fiika min ruuxih wacallamaka alasmaa'a kullaha wa amara malaa'ikatahu fasajaduu lak. wuxuu yidhi: soo adiga maahan midka uu Alle subxaanahu wa tacaala ku afuufay ruuxdiisa oo dhammaan magacyadiina ku baray oo malaa'igtiisana ku amray in ay kuu sujuudaan oo kadibna ay kuu sujuudeen? qaala: nacam. nebi aadamna calayhi salaam wuxuu ku yidhi: haa, waa aniga. qaal: famaa xamalaka calaa an akhrajtanaa wa nafsaka min aljanna. wuxuu ku yidhi: maxaa kuugu kallifay in aad jannada inaga soo saarto naftaada iyo teenaba? qaala lahu aadam: waman ant? nebi aadam ayaa ku yidhi: adigu yaa tahay? qaal: ana muusaa. wuxuu yidhi: anigu muuse ayaan ahay. qaal: anta nabiyu bani israa'iil. wuxuu yidhi: adigu bani israa'iil nebigooda soo ma tihid? anta aladii kallamaka rabbuka min waraa'i xijaab lam yajcal baynaka wa baynahu rasuulan min khalqih. adigu soo ma tihid midkii uu Alle subxaanahu wa tacaala toos ula hadlay isagoon daah iyo rasuul kale midna idiin dhaxaynin? qaala: nacam. nebi muuse wuxuu yidhi: haa, waa runtaada. qaal: فما وجدت ذلك في كتاب الله تعالى أن ذلك كائن من قبل أن أخلق. wuxuu ku yidhi: kitaabka Alle subxaanahu wa tacaala soo kuma aadan arkin in arrinkaas uu Alle subxaanahu wa tacaala qadaray ka hor inta uusan i abuurinba? qaala: nacam. nebi muuse wuxuu yidhi: haa, waan arkay. qaal: ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى في القضاء قبلي. wuxuu yidhi: maxaad iigu eedaynaysaa shay uu Alle subxaanahu wa tacaala horay u qadaray ama u xukumay hortayda? qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam. sheekadu halkaas markay marayso wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wassalaam: فحج آدم موسى عليهما السلام. آدم ayaa muuse ka badiyey oo ka guulaystay calayhima assalaam.
wuxuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiiskan gudihiisa inooga warramay sheekadii dhex martay nebi aadam iyo nebi muuse calayhim assalaam markii ay kulmeen, waxayna taasi ka dhacday nolosha barsakha ama nolosha qabriga markii uu geeriyooday nebi muuse calayhi salaam. waxay nafafkoodu ku kulmeen samada, waa sida ay sheegeen qaar ka mid ah culimada. nebi muuse calayhi salaam uma eedeynin aadam calayhi salaam inuu dembiga galay awgii, waabatuu nebi aadam calayhi salaam ka toobad keenay oo uu allena subxaanahu wa tacaala ka aqbalay towbadiisa. nebi muuse waa nebi xikmad badan, cidna kuma eedeynayo shay uu alle subxaanahu wa tacaala ka cafiyey, balse wuxuu u eedeynayay oo keliya inuu naftiisa iyo awlaaddiisaba ka saaray jannada. allena wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala: waqulnaa yaa aadamu uskun anta wasawjuka aljanna. waxaan ku nidhi, aadamow, jannada dega adiga iyo xaaskaagaba, wakulaa minhaa ragadan xaysu shi'tumaa, meeshaad doontaan iyo waxaad doontaanna ka cuna, balse walaa taqrabaa haadihi shajara, ha ku dhowaanina halkan geed oo keliya, si aadan macaasi ugu dhicin oo aadan uga mid noqonin kuwa xadgudbay. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. shaytaan ayaa simbiririxiyey oo waswaasiyey ilaa uu ku riday qaladka oo uu ka cunsiiyey geedka, isaga ayaana sabab u noqday in laga saaro jannada iyo barwaaqadeeda. waqulna ihbituu bacdukum libacdin caduw. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ku yidhi, u soo dega dhulka idinkoo cadow isku ah, yacni xaawo iyo aadam iyo shaytaanka. walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiin. waxaad dhulka ku leedihiin joogis iyo deganaansho iyo ku intifaacid aad ku intifaacdaan waxa dhexdeeda ahaaday ilaa ay ka dhammaanayso ajashiina. wuxuu aadam calayhi salaam nebi muuse ku yidhi, alle ayaa ii qadaray in aan khaliif uga noqdo dhulka. haddaan ku daaho iyo haddaan degdeg uga soo baxaba, laba gooraba qasab ayay igu ahayd in aan ka soo baxo jannada. taasina waxay ahayd wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ii qadaray 40 sano ka hor inta uusan i abuurin. nebi aadam ayaa nebi muuse uga badiyey halkan. dooduna waxay ku saabsanayd musiibadii qabsatay ee kuma saabsanayn dembigii uu galay. shaykhul islaam ibnu taymiya wuxuu yidhi, sida ugu saxsan qisadii dhex martay aadam iyo muuse waa in muuse uu aadam ku eedeeyey oo keliya dhanka musiibadii ku dhacday isaga iyo awlaaddiisa wixii uu sameeyey awgii. goormi ayay dhacday dooddaasi? xaggee bayna ka dhacday? waa ay isku khilaafeen mufasiriintu. qaarkood waxay dhaheen waxay arrintaasi dhici doontaa maalinka qiyaamaha. waxay dhaheen waxaa qisada maadi ahaan ama ficil horay u dhacay ahaan la inoogu sheegay hubid la hubo in ay dhici doonto awgii. waxaa kaloo la yidhi waxay arrintaasi ka dhacday barsakha markii uu nebi muuse calayhi salaam geeriyooday ee uu la kulmay aadam calayhi salaam. ha noqoto mid horay u dhacday ama mid dhici doonta, waan rumaynay, maxaa yeelay waxay ka mid tahay qaybka, waxaana ka qaadanaynaa fahanka saxda ah sida ay inoo caddeeyeen salafkii wanwanaagsanaa. xadiiskana wuxuu asal u yahay xaqiijinta al-iimaanu bilqadar. hada wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.